ururka haweenku ha noolaado dhalinyarada ha noolaato bismillahi raxmaani raxiim gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda mudane tuulax xildhibaan caraale gudoomiyaasha 6 degmo gudoomiyaha degmada kaaraan gudoomiyaha degmada halwadaag gudoomiyaha degmada hodon gudoomiyaha degmada wadajir gudoomiyaha degmada darkaynley gudoomiyaha degmada kaxda iyo dadweynaha halkan ku nool waxaa sharaf noo ah inaan maanta joogno degmada kaxda xilliqato inaan maanta joogno olole nadaafadeedna ka socdo degmooyinkana badi loo soo maray waxaa cajiib leh degmada kaaraan inay caawa ka shaqaynayso degmada kaxda waaxda koobaad ee janaaliya liiqato intaa ka bacdi waxaan ka sii wadaynaa halkaas haddii ilaahay yidhaahdo waxaana iiga dambaysa madaxda degmooyinka iyo gobolka haddana waxaan ku soo dhawaynayaa ururka haweenka ama ururka haweenka waxaan ka salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir wakiilada 6 degmo ku-xigeennada telefishiyada guddiga amniga ciidamada amniga waxaan kula amnigeena sugayso waxaa sharaf weyn ii ah in maaragtaa fursaddan aan ka faa'iidaysanayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo yidhi isxilqaan ha la sameeyo ayaan codkiisa raacaynaa waxaan samaynaynaa isxilqaan 6 degmo oo iskaashi la yidhaaho waxaa kaloo salaamayaa ra'iisul wasaaraha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka aabbaha degmooyinka maasha allah kor allah ka dhigo waxa waaye warka waa laygaga dambeeyaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waan sheegay waxa waaye aabteehe tulaxow daacadaad tulaxow daacadaad dumarkaa maan daryeel mudnayd tulaxow daacadaad dumarkaa maan daryeel iska fiiri haween waaye wixii waxaaqa wixii wax soo dhawaynaa haween waaye xaqooda ilaahaa gudi karo wasalaamu calaykum master tulax iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka dhammaan wakiilada degmooyinka xogeeyayaasha iyo dhammaan 6 degmo ee ka soo qayb gashay iskaa wax u qabso ama wixii la dhihi jiray isxilqaan annagu iskaa wax u qabsaan dhihi jiray waa isxilqaan waase sidii aad baan u salaamaynaa boqolkiiba boqol baan ku salaamaynaa mudane gudoomiye waad u jeeddaa in kastoo gobolkii naga dhacay oo hawlihii aan u baahnayn aan u oomanayn aanaan wada gaadhin haddana waxaa sharaf weyn noo ah 6 degmo inay isu yimaadaan oo isdhexgal sameeyaan oo isbartaan oo wada hawl galeen berri ka maalinna qof walba qofka kale inuu yaqaanno taasaa guul iyo faa'iido weyn noo ah waxaan jeclahay meertadaasi joogtay noqon doontaa degmooyinka waa u soo socon doontaa ama mar labaad ha noqoto ama mar saddexaad ha noqoto waa barnaamij la jaangooyey oo la jireeyey oo socon doona haddii aan la yidhaahdo intaa kadib mudane gudoomiye haddii barnaamijku sidaa u socdo degmada gobolka banaadir waxaan aaminsanahay wax weyn laga qaban doono waa barnaamij loo baahnaa aad bay bulshadu ugu ooman tahay waxaan codsanaynaa hawshaas in looga sii dhowaado intaas oo la sii wado oo degmooyinka الرحمن الرحيم الحمد لله أثنى لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقعيب هو النمطول بدل جامع حرسي وكم مقع دير بدل لاقرة إلهي ما مهادس كلم مدك اللباد والدين بهد حنينينا قلبت وحا هلكن يسوي يمد لمان قبل كبلادر تقنوي كيسي وآدي آل هوشو دو قدنيا وحا الأركيسان وقرون كان ودا تاقن وقبل كيني بلادر قرحستي الدقيدة جنبوليدا هوانكا قربوتكي يا حرورتا واجبكي قدنايا قول ليه إلى سيئي مهد وينها كقاده أيها قدنايا قول ليه إلى سيئي مهد وينها كقاده واحد قوبتا ولا جوغا وقرونكي دقمدا كحلة وما أنت لغا شقينيو وقبل كيونا لسوي يمد مركا إلهي ما مهد اسكالي وان أركينا وانو مهد حليلينا مد اللباد
waa habeennimo qorraxdu waa dhacday sida loo shaqaynayana waa aragtaa dadka u haysta xamar inayna amni ahayn beendha waa arkaysaan xamar waa amni gobolka banaadir amnigiisu boqolkiiba 80 weeye waa socdaa 20 kale waa dhammaystiraynaa ilaahay baana mahadda iskale guddoomiyaha gobolka ahla duqa magaalada cabdiraxmaan yariisow waan u mahad celinaynaa hawsha uu qabanayo had iyo jeer wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gobolka banaadir lixda degmo hooyooyinka ururada bulshada bismillaah wakiilada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdullaahi maxamed tuulax xildhibaan xuseen caraale caddaan gudoomiyaasha degmooyinka lixda degmo ururada bulshada konsolka dhammaan lixda degmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي وحا فرحاد إنه عوضة إن كشقين إنه دقمة كحظة عرف كقلبات كارهان واحدة كوبات اللي قطع أنكو سيرين إنه هالباقي مدحوينها هاي سلقان كانت تحذير إنه هالكوديكر الوزارة هو الحساب تنح أنه الحساب تنكاس فجينا إن قوم نغلمت عن كصبح نوكو ليسنو أنا جو إلى إنه أوامر هذا كصبح يدوق مجال هاي سؤالها أبو الرأيو استحقاق وحن أنت وجهنا ساعات أنا ذا كيسان ولا نظافات وإسكت عشان هاي نحن نتقو وهاي كرمال النوبي بيت ونوقف هاد علينا إن مركز طبعا حياة كأمنية سياسة محمد عبد الله محمد توله حلوان عقارة وقاب كشغالة أسعته إسحلقان أما إسكاشك اللحدة تقو فرمير إنه يمد وإنه فرحات وإنه بيتقلين فرمير كاس وذلك الدومية عوضه وشغالة وإسحلقان كشنات كل ما تقو ذا كحلة وهاي نور من نبكين لي يدنا شاق وقتك الصوص على أنجلي دون أسبوع عن حديثة إن شاء الله تعالى معهن لح الجاب خليها شغال وبدو النص عضونا أنت عن سويته إن صارنت هاي وعنا رجينا إن أنت عن إسكاشك عن كبد النص وبسود وين دارياشا أبوانا نرجوها فالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحاش رفوا النوع مدن gudoomiye iyo xildhibaan inaan nagala soo qayb gashaan ololahan iskaashiga lixda degmo ka wadno oo maanta caawa aan joogno sida gudoomiyuhu hore u sheegay cirifka galbeed degmada ugu xigtay oo kaxda cirifka baritii ugu xigtayna habeen hore aan ka soo shaqaynay oo kaaraan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad nagala soo qayb gashaan waan idinka mahadcelinayaa dhiirigelinta nala ag taagantiin nala garab taagantiin mar kasta intaas ka bacdi go'aan soo gaarnay waaye waana wadi doonaa waxaana na siiyay awaamiirtaas madaxna naga sarreysay idinku aad ka mid tihiin oo ugu weyn yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ha noolaado ra'iisul wasaaraha dalka duqa magaalada iyo dhammaan maamulkooda awaamiirta ayna siiyana fulinaynaa waa naga go'aan ilaahay idinkii waana wadi doonaa idinkana garab iyo gaashaan baan noo siin annaguna awaamiirta na siiyaan baan fulin doonaa waxaan rajaynaynaa muqdisho inay ku soo noqoto muqdishadii la yaqaanay waxaan rajaynaynaa 17 degmo hal degmo ka wada hawlgalaya in la arki doono waqti dhow haddii la yiraahdo aad bay farxad ugu tahay inaad gudaha naga soo qayb gashaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ku soo dhawanayaa gudoomiyaha xildhibaan caraale soo dhow xildhibaan gudoomiyaha ku-xigeenka amniga mudane maxamed cabdullaahi tuulax wakiilada degmooyinka oo heer qaran ah lixda degmo guddoomiyaashooda iyo kowsalladooda saxaafadda ciidamada qalabka sida in allaala qof kastaba taytalka ay ku joogto halkan ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib qoftaana magaceeda sheegin ma dhaafin marka salaantaasay ku dhex jirtaa assalaamu calaykum ay ku dhex jirtaa maantay mudana guddoomiye aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta iyo dadnimada iyo wanaagga
iyo amaamiirtii dawladda ay bixisay oo say u bixisay u fushay weligeer dawladda amar waa bixisaa amaamiiray bixisaa waxay tidhaahdaa saasa loo wado laakiin waxaa jira wax badan oo fulin laakiin middaan waxaan leennahay waa fushay waad arkaysaa laguma kala maqno meeshaan degmadii sida iga hor loo yidhiba degmadii kaaraan inay maanta caawa halkaan joogto oo meeshaad ogtaha jirta halkaanna habeen horena ou jiray guddoomiyaha degmadaan iyo kawsalkiisuba ay jireen kaaraan waxaa waaye isdhexgal bulsho waaye waa mahad ilaahay waa guul ay gaartay dawladdu waa guul ay u gaaray gobolka banaadir waa guul ay gaartay ummadda soomaaliyeed oo dhan marka ma raba warka inaan ku dheeraadho waxaan leennahay sida aad u waddaan uwada hawshaad waddiin waxaana rajaynaynaa soo naqashadayna kale iyo isu imaadkayna kale inay degmooyinka kaloo dhan kulligood ku soo xaadiri doonaan maaragtay hal degmo ku soo xaadiri doonaan marka aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waa soo dhowaynaynaa annaguna waxaa waaye xoogagga waddaniyiinta haddaan nahay hal mar idinka heri mayno xoogagga waddaniyiinta la wada yahay waxa meesha joogoo dhan waa xoogagga waddaniyiinta marka ma loo kala heraayo waxaa waaye dalka intii laga gaarsiinaayo qof iyo cod intii laga gaarsiinaayo mudane guddoomiye waxaa waaye lama kala heraayo barbarkay ka baxdaa waaba ka ilagaaleen marka saasaan leennahay aad iyo aad aad mahadsan tahay mudane guddoomiye ku soo dhowaaw aad iyo aad adoo mahadsan kulligii waa islaamay iyo gudoomiyaasha lixda degmo xoogagga saxaafadda kulligiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weliba odayaashii kama maqna odayaashii koofiyadu wata joogaan nabadoonnadii qof waxaan u malaynaa waa loo dan yahay aad iyo aadaan kulligii idiin salaamay wakiiladii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib farxad gaar ii tahay sharaf inaan markii saddexaad idinkala soo qayb galo barnaamijkan isxilqaan oo aad isugu geyseen xuduuddiinnii iyo xooggiinnii waxaa caawa fursad ka lahaa inaan kaxda joogno habeen ka horreeyana aan marka qofkii loo sheego in kaxda saacaddan nadaafad ka jirto waa wax weyn uu dareemayo inuu isbeddel fiican ku jiro waxaan aad iyo aad u ammaanayaa guddoomiyaal sida wanaagsan ee aad isku xilqaanteen idinkoo fulinaya awaamiirtii guud ee madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha iyo prime ministerka guddoomiyaha gobolka kulli ay ahayd in si wada jira laisku xilqaamo isxilqaankaana waxaa door muhiim ah oo habeen iyo maalinba leh ka kale haweenka degmooyinka khaasatan lixdan degmo oo aan habeen walba ugu imaanayay degmo ayagoo ka howlgalaya lagana yaabo maalintii inay meel kale ka howlgalayeen marka soo jeedka idinka la'aantiinna annaga waxba ma qabaneen haddiisan jirin haweenna garab taagan aad iyo aadaan kaga mahad celinayaa gudoomiyaashiinana sida wanaagsan ee aad maaragtay isugu xilqaanteen nadaafaddu waa iimaanka barkiis haddaan nadaafadi jirin amnina ma jiraayo waxaa laga yaabaa goob walba oo nadaafad darra ku badan tahay amni darrana qayba ka tahay oo dadka tuugada ah oo dadka dhibaaya ku gambada walxaha qarxaa la gelin karaa marka aniga shakhsiyan waxay ii tahay in nadaafad la helo in amnigii qayb ka mid ah uu fududaaday gobolka banaadirna runtii in maalinba degmo la tago waxay u tahay fursad waxaan qabaaba in loo qaybso gobolka 3 qayb meesha idinku hadda 6 ka tihiin kuwa kalena 6 iyo 7 laga dhigo si ay u sahlanaato ama 6 iyo 5 si ay u sahlanaato in cududii meel isugu geeyo insha Allah taasna waa fulin doonaa oo idinka bilaabay waana ku amaanan tihiin waxaan rajeynayaa marka inaad insa ku ekaan sida hore u ballan qaadeen wadaag waa idin jooga Kaaraan waa idin joogay horeyna wada jira u samayseen caawana ka hadan joogna hodan waa la tagay marka degmada dharkiile noo dhiman waa rajeynaa marka inay noqoto wax routine oo dib uga soo bilowdaan wada jir ka bilaabo soo in wada jir marka dib looga soo bilaabo oo ma degmo walba culayskii sida hadda aad samaynaysaan si la mid ah samaysaan anigana waa ku garab taaganahay mar walba iyo meel walba oo aad ka hawlgalaysaan walaalo anoo shaqo ka soo baxaan ii sheegay inaad barnaamijkan qabtaan marka habeenii maalinba garabkiina ahay inaan ku dhiirigelino hawsha haysaan xildhibaanka oo mar walba ah xildhibaanka degmooyinka dhan oo meel walba oo runtii ay ka jirto hawl wanaagsan garab taagan asagana runtii aad iyo aad uga mahad celinayaa iyo wakiilada
oo dhiirigelinta iyo abaabulka iyo maaragtay isxilqaankaba qayb weyn ka qaatay aad iyo aad runtii u ammaanayaa khaasatan waxaa haysatiin degmooyinkan wakiiladii ugu fiicnaa oo ugu abaabulka fiicnaa oo ugu enerjiga fiicnaa marka inaad ayagana ka faa'iidaystaan waan rajeynaya waana mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu